العالمين marka hore ilaahay baa mahad leh mar labaadka madaxda uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo madaxda kale heer qaran heer degmo xildhibaanada haweenka uqaasha dhalinyarada waxgaradka iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ku sugan goobta assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka bacdi madaxdii hore halkan soo istaagtay baa sheegtay waxa kaliya aan oranayaa anu waa mahadnaq dadweynaha gobolka saaxil gaar ahaan degmada Berbera sida ay cududooda iyo taageeradooda u muujiyeen waa mid aan la koobi karin runtii kaalinta ay kaga jiraan xisbiga kulmiyana waa kaalintii koowaad gobolkani waa gobolka codka lagu kala helo waa gobolka la tirsado marka codka bariga ka yimaada uu galbeed u socdo waa halka lagu kala baxo doorkii hore 17kiina halkan lagu kala badiyay doorkan cod badan baa yaala gobolka saaxil dowladtusku wuu soo dhamaaday waxa loo diyaar garoobayaa waa cod bixintii waxa weeye intaas oo kala sii dhawaano qodobka muhiimka ee aan xasuusinayaa waxa weeye maalintaas 13ka qof kasta inuu isxilqaamo oo aanu cidna sugin oo cududeena iyo codkeena aynu ugu codayno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waanan hubaa gobolka saaxil iyo dhammaan dadweynaha taageerayaasha xisbiga dalka oo dhami inuu qof kasta isxilqaamo labada goobood oo calaamadinaya uu yaqaano waa nambarka labaad oo madaxweynaha iyo nambarka 10aad oo xisbiga waxaan jecelnahay 13ka November isu soo baxeenan wuxuu daaran yahay in loo sii diyaar garoobo maalinta cod bixinta waxaan idinku taakiidinayaa ama aan idin xasuusinayaa walaalayaal tacabkiina inaanu inaga khasaarin isu soo baxeenan iyo ismuujinteena waa diyaar garowgii wahaa laakiin maalinta 13ka bisha 11aad waa maalintaynu cududda ugu hiilinay qaranka Soomaaliland cadowga Soomaaliland aan ugu hiilinaynay dhammaantiin guntiga dhiisha ka xidha maalinta sabtida soo socota barima heesta dambana agabkiina haysta la ishaleelimaayo wala soo baxaya hadii Ilaahay yiraahdo qof walba ha ku tala galo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh